agaasimaha guud ee wasaaradda duulista hawada Soomaaliland Cumar Sayid waxa uu faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay hayndaab laga dhisi doono madaarka magaalada Hargeysa oo imika la bilaabay. agaasimaha guud oo kormeer ku tagay hayndaabkaasi ama fenska laga hirgeliyay madaarka magaalada Hargeysa ayaa waxa uu sheegay in xukuumadda Soomaaliland siiba khaasatan wasaaradda duulista hawada Soomaaliland ay go'aansatay in hayndaabkaasi laga dhiso, isagoo faahfaahin ka bixinaya halkii marayso hayndaabkaasi waxa uu yiri mashruucii labaad ee madaarka dib u dhiska madaarka caasimadda oo bilaabmay kaasoo ka kooban kordhinta dhabada diyaaradaha oo lagu darayo 1410 mitir iyo hayndaabkii madaarka ama deyrkii siligii ku wareegay madaarka oo hadda bilaabmay wajigiisii koowaad iyo kii labaad bal israacin doono. hayndaabkaasoo ka kooban 12 kilomitir oo isku wareega. waxa xusid mudan intii xukuumaddan ay talada haysay muddada 3 sano iyo barka ahayd in madaarada Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku talaabsadeen horumar la xad leh gaar ahaan madaarka caasimaddu. agaasimuhu sidoo kale waxa uu sheegay dhammaan waxa isla qiimeeyay guddiga jira oo ka kooban wasaaradda hawlaha guud iyo wasaaradda duulista hawada. xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay diyaar u tahay dadkaas wixii hanti ka galay in loo celiyo. sidaa darteed maadaama xukuumaddu ay shacabka iyadu dawladdu tahay ay mas'uul ka tahay marnaba suurtagal mayso in shacbigeeda ay dulmido. waxay xukuumaddu diyaar u tahay dadkaas wixii hanti ka galay ee dhismaana in loo celiyo, wixii dhulbada xaq leh ee sharci dhulka ay ku mulkiyeen haysta ee sifar sharciyo kulana in la siiyo. taas ayaan ku shaqaynaynaa. waxaan u sheegaynaa dadka ku jira ee gacanta ku leh een ahayn dadkii dhulka lahaa een dawladda ka socon ee ka dhex dilaalaya mujtamaca madaarka agdegan iyo dawladda u kala dilaalaya ee warka u sheegaya in arrimaha faraha kala baxaan.